بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في الله. براروجين وعن إذن براروجين يا إن الله سبحانه وتعالى كعبستان دين الإسلام كان أدهي ستان دينتنا أدخل لمتان الله سبحانه وتعالى وحليه كو الله رسول كيسر همين وإلهي رسول كيسر همية هنا ديماننا إذنك أو أنا المسلمين إهين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مركا الله نقول المسلمين ماذا أنت سكدي بولا ليال براروجين تأه وحانو كهد لنا مقال ama aan kaga hadlayna aan iraahna afwan qofkan la yiraahdo ama ninkan la magac baxay magaca ee baraha bulshada ku isticmaala Sheikh Shantai ayaan rabnaa inaanu laba ka dhaxno weerarna kuma nihin yani mana colaadinayno balse waxa aan aragnay ayaan rabnaa inaan bulshada u soo gudbino ninkan Sheikh Shantai la yiraahdo erayga Shantai ma isticmaali doono erayga Sheikh ee asigu baraha bulshada ku soo isticmaalo ayaan rabnaa inaanu tafsiir ka bixino ama aanu fiirino sidaan anagu aragno erayga Sheikh waxa loo isticmaalaa ama culimada ay u isticmaalaan ama dadka aqoon-yahanada ay u isticmaalaan ama ay u adeegsadaan aan iraahne laba qaabka koowaad qofkan Sheikh inuu yahay oo cajuuz yahay oo duqoobay ama da'yahay ama waayeel yahay saa u taqaanid Soomaaliga qaabka labaad inuu yahay ninkan nin caalim ah oo faqiih ah oo laga cilmi qaato cilmina laga doonto oo daalibul cilmigana ay ku xiran tahay oo nin aqoon-yahan ah markaas xukumiye xalaaliya maxaa ahay xarimo ee xalaaliya ayaanu labadaasi ayaanu isticmaalaa marka maadaama labadaasi qaab loo isticmaalo Sheikh Shantai eraygii Sheikh labadii qaad ee la rabay in loo isticmaalo ma uu isticmaaliyo wiyaan maya ma uu isticmaalin mideeda kale diintan Allah subhanahu annagu waxaanu nahay dad muslimiin ah waxa dalkeenu waa dal muslim ah Soomaali la yiraahdo wuxuu haystaa diinta islaamka wuxuu haystaa diintii lagu soo dejiyay nabiyullaahi Muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam ee Allah subhanahu wa ta'ala uu ku soo dejiyay ayanu haysanaa maadaama sida ay tahay diintu waxay nafaraysaa inay tahay diintan diin fudud inay tahay oo aan dadkuna lagu adkaysiinin nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay inna ad-diina yusrun wa la yushad ad-diin أحد إلا غلبه دينتان وأي فضودها قفنا إسكما أدكيو إلا أي كغالب نقط ميان أوكي إلا أو غالب نقط ميان سيدو كله النبي عليه الصلاة والسلام رو دينتان كهاد لا يوحي الدين النصيحة دينتان أداركيسان الدين الإسلام ليدا هذو أنو نقصو دكتي ودين النصيحة ودين وناجين ودين قبو يعني أمد إن لقبوجية أمد إن لا نستحيا أمد إن لا وناجية معناها أي تهوية صحابتي مركع النبي أكجوكت عليه الصلاة والسلام حير هذين قالوا لمن يأتهي أما قلنا لمن يا رسول الله ينصيحة أتهي دينتان مركع النبي عليه الصلاة والسلام حير لله ولملائكته وكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم يعني وكا دينتو انت أتهي نصيحة maadaama adigu aad isticmaasay erayga Sheikh waxa laga rabay in bulshada aad u soo gudbiso waxyaabo wanaagsan adigoonan qaybtooda dambe ama qaybtooda hore gabdhihii cawraadkoodii wiilashii cawraadkoodii aflagaadadoodii waxyaabahoodii fawaaxishta ahaa waxyaabihii cawraadkoodii inaad banaanka soo dhigto in aysan ahayn waayo diinta adigu aad Sheikh aad u qaadatay ama eraygaas aad u qaadatay ayaa waxay ku faraysaa nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay إلهي عيب يعني إلهي عيبت أدونكي سواء وأسترا مادام أو أسترا عيبت ضدك مؤمن ضدك كله معناها وحيت هاي إن إلهي إن أكو أسترا ما دام أديك أد أسترا سد عيبه ضدك على مسلمين تاه مركز ضدك على عيبه هذا أنت أذن فاجن دبق الجلين وحال جربي إن أديو ضدك عيبته أسترتيت سو إلهي أديك عيبت هذا وأسترا ساس دراد ده أرجع الشيخ مو استعمال ماشي اللي جربي هيت هديته مادي هديته دينية يعني دينيا وماديا هذي دينيا أي تهانا وما عادن استعمالين وهاي واحد جرو الشيخ فربنا أو سوشيال وبرا بالشدة استعماله بالشدة كل حجره كفتمه بالشدة لا كفتمه بالشدة لجوج لا نحنول لا كل حسون أي جرو وسيد أدي ولا رقم يصدق عنه ولا رقم سيد دتك على عيبه هذا فافاجي سيد يوتيوبر عدو ته يودت كان عنه فافاجين وأبودان إن سوفر يستعمل بالشدة أي واحد وشيء حساهاته وحرم معي أما وح أديده أيو كتاب كيدين النبي عليه الصلاة والسلام
lagu soo dejiyay ayaa iyo diinta aanu haysano ee muslimka ayaa qofka controleysa marka sheekh waxa laga rabay ergaasi meesha aad u isticmaashay ee ah in aad mar walba qofka ceebtiisa banaanka aad soo dhigto aad maalin walba Facebook-kaaga page-kaaga hal video aad ku soo kala kacsato ama YouTube-kaaga hal video aad ku soo kala kacsato waxa kaaga wanaagsanaan lahayd in maalin walba aad live soo gasho oo dadka qeyrka aad farto diinta aad ugu naseexayso dadka waayo dadkeenan Soomaaliyeed maadaama boqolkiiba boqol ee muslimiin yihiin baraarujin wacyi ay u baahan yihiin wacyi diineed ay u baahan yihiin laga wacyi geliyo waxyaabaha munkaraadka sida hadda aad u sheegayso si ka duwan ayaad u sheegi kartaa adigoo markaasi waaninaayo adigoo markaasi diinta qodobada ay ku farayso aadayo marka waxaan isku dardaarmaynaa wanaaga iyo qeyrka iyo samaha ayaan isku dardaarmaynaa